maxkamadda waxaa la shaqeeya ciidanka ugu horeeya maxkamadda la shaqeeya waa ciidamada booliska in loo tababaro ilaalinta xuquuqda dadka waxay tahay muhiim maxaa yeelay 20 sano la soo dhaafay waxaa dhacaya xadgudub ku dhacayay xuquuqda bani aadamka inaan isgaranno marka waa laga maarmaan oo anaga qorshaysano waxaan iska mudannahay mako waa magaaladii ilaahay ka soo saaray nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam aayado fara badan ku soo degay waxyaabaha lagu tilmaamo inay noqoto beledal wahyi waxa kamid ah reer maka waxay ku heshiyeen markii dambe qof dhaalim ah haday arkaan inay qabtaan dhaalimka kasoo tag meesha macnaha adiga waxaan rabaa inaad kasoo tagto meeshaadi ku noqoto maya meeshiisu ku noqonaa sug madaxweynaha meeshiisu ku celi meelihina taagnaada raalli ahaada wadbadii waa sii soconaysaa raalli ahaada wadbadii madaxweynaha waa sii soconaysaa meeshiisa ku sii wadaynaa marka waa mudan madaxweyne kusoo dhow wadbada waa la daalay aan u malaynaa marka insha Allah caafimaad ilaahay siiyo waxaan ka hadlaynaa ilaalinta xuquuqda bani aadamka waxay ka mid noqon doontaa waxyaabaha ugu waaweyn oo dawladda ay ku mashquulshay insha Allah tabaaraka wa tacaala arinta kale aan rabaa inaan ka dhawaajiyo arinta wax soo saarka iyo horumarinta arinta kale aan rabaa inaan ka dhawaajiyo arinta wax soo saarka iyo horumarinta dalkan waa dal ilaahay khayraad fara badan siiyay wulina lagama faa'iideysan waa ka baahanna dadka qaar waxay dhahaan waxa isku dilaysiin waa baahi marka dadku waxay u baahan yihiin khayraadka dhulka ku jira ama badda yaala in la soo saaro si cadaaladana loo maamulo si qof walba oo u helo waxa ku filan noloshiisa waxaan leenahay xoolo isugu jira lo iyo geel iyo ari waxaan leenahay kalluun waxaan leenahay beero waxaan leenahay macaadin fara badan lagama faa'iideysanin sidii loogu baahnaa qorshaha dawladda markuu wax weyn yahay insha Allah tabaaraka wa tacaala aan soo dhisi doono in laga faa'iideysto oo hab looga faa'iideysto la helo khayraadka faraha badan ee ilaahayna siiyay lagana bilaabo deymihii lagu lahay dalka sida looga tacaamuli lahay